توفي الإعلامي المصري وائل الأبراشي مساء الأحد الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في العام المنصرم. الجدل على مواقع التواصل اشتعل بسبب فرحة بعض المعارضين للنظام المصري بوفاة. asalaamu calaykum asxaabta dhowr cisho ka hor aniga oo youtube isaga dhex jira ayaa waxaa iga soo horbaxay war ilaa dhowr iyo 10 cisho ka hor ah oo ku saabsan inuu dhintay weriye masri ah oo caan ka ahaa dalkaas. runtiina wax qariib ah ma aha inuu qof dhintay oo naf waliba saacadeeda ayay dhimanaysaa. waxaase iga yaabiyey ayaa ahaa in dhimashadiisa ay ku farxeen shacabka reer masar oo ay baraha bulshada iyo komentiyada muuqaalada dhammaantood ay ku qoreen in ay ku faraxsan yihiin geeridiisa. waana wax aad loola yaabo qof ashahaadanaya islamarkaana ah weriye caan ah oo reer masar ah ayay dadka reer masar ku farxayaan geeridiisa. waxaan isweydiiyey markaas waa maxay sababta ay dadku ugu qaadeen nacaybka iyo cadaawadda intaas leeg. markaan baadhayna runtii waxa ii soo baxday wax ka sii yaab badan oo ay tahay in qof kasta ku cibro qaato oo ay tahay arrin aan la ilaawi karin oo aan jeclaystay inaan idila wadaago muhiimadda dhacdooyin ku xeeran arrintaas. اعلم أنني سأموت وأنك ستموت وسنلتقي أنا وأنت بين يدي الحي الذي لا يموت. تقدر تبقى منصف دقيقتين؟ بس. لا، لابد أن أكون منصفا على الدوام. بعد إذن عايز إيه تاني؟ بعد كن مسلما منصفا لله. طيب. ugu horreyn markaan baadhay waxaan ogaaday in waa'il al-ibraashi oo ah weriyaha dhintay iyo doctor maxamuud shacbaan oo ah sheekh jaamacadda asar wax ka dhigayay oo aan isna gadaal ka ogaan doono ay yihiin shakhsiyadaha ugu badan ee Google laga raadinayay maalmihii u dambeeyay dalka Masar iyo dabcan wadamada Carabtaba. haddaba si aan wax uga fahanno sheekada oo dhammaystiran aan wax ka ogaano weriyahan al-ibraashi oo ahaa weriye markiisii u dambeysay ka shaqaynayay TV-ga wadaniga ah ee dalka Masar oo inta badan barnaamijyadiisa oo dooda u badnaa ay ahaayeen kuwa muran badan dhaliya. yacni dadka uu ku casuuma ayaa inta badan khilaaf dhex mari jiray heer ay qaarkood stuudiyoga dhexdiisa ku dagaalamaan. isaguna waxa uu ahaa inta badan ka dhex abuura buuqa. waxa kale oo uu ahaa weriye u janjeera dhanka cilmaaniyadda iyo nin aad u taageera dowladda militariga ah ee hadda ka talisa Masar. isaga oo tan iyo markii ay ciidamadu afgembiga ku rideen dowladdii Maxamed Mursi uu ahaa waqtigii uu aadka u soo caan baxay weriyahani. manuu ahayn mid kaliya ku soo caan baxay xirfadiisa ee sida ay u badan tahayba warfaafinta dawliga ah ee dalka Masar oo ah kuwa lagu sheegay in ay yihiin kuwa calaamad u ah munaafaqada, dulmiga iyo in aanay fursad siinin ra'yiga dhanka kale ee ka soo horjeeda maamulka. dabcan mowduucaas hadda ka hadli mayno, intaasina ma aha wax u qalanta in geeridiisa lagu farxo. bal haddaba maxay tahay xaqiiqda kale ee jirta? markii ay maqleen dadku geeridiisa waxaa mar kaliya maskaxdooda ku soo dhacday kulan barnaamij TV oo uu weriyuhu ku casuumay sheekh lagu magacaabo doctor maxamuud shacbaan 8 sano ka hor oo uu muuqaalkiisu aad ugu faafay baraha bulshada loona yaqaano waraysigii shandada ama boorsada. waqtigaas oo ahayd markii uu inqilaabka militari ku qabsaday Masar Cabdilcasiis Siisi oo uu dhacay xasuuqii ay u geysteen ciidamadu dadkii ka soo horjeeday ee isugu soo baxay barxadda Raabica oo ay ku dhinteen dad gaaraya 1,000 qof. isaga oo sheekha ugu yeeray si uu uga waraysto eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa inuu yahay mid mayal adag oo ardaydiisa ku booriya xagjirnimada kana soo horjeeda nidaamka militariga ah. sheekh maxamuud shacbaan dabcan waxa uu khudbadihiisa masjidka iyo TV-yada ka sheegay waqtigaas in aanay bannaanayn in dadka la laayo isaga oo u hadlayay dadka masaakiinta ah ee dulman. wuxuu sidoo kale ka hadlay ardayad xijaaban oo askartu ay si xun ugu bahdileen jaamacadda Asar horteeda, taas oo sababtay in sheekha laga joojiyo macallinimadii jaamacadda laguna eedeeyay mid mayal adag. weriyahan ayaa ku casuumay barnaamijkiisa si uu arrintaa wax uga weydiiyo sheekha, laakiin sheekh maxamuud markii uu imanayay stuudiyoga waxa uu hore u soo qaatay shandadiisii sidii oo aad mooday inuu xabsiga tegayo oo xaruntii TV-gu ay tahayba xabsigii, isaga oo sheegay in ay u badan tahay in la xirayo waraysiga kadib isna uu diyaar u yahay haddii lagu xirayo xaqa uu sheegay, isaga oo bilowga waraysigaba weydiinaya weriyuhu sababta uu u soo qaatay shandadiisa. أنت جايب شنطتك، أنا عايزك بس تطلع الشنطة. أهي جاهز لأي حاجة. أنا جاهز، اللي عاوز يجي ياخدني أنا قاعد وبدل ما يروح لا لا البيت لا، والله طلع أهي الشنطة، والله. الناس مش هتصدق إنك جايب أهي الشنطة أهي الشنطة معايا. استعدادا للقبض عليك يعني. في أي وقت أنا مستعد لأي حاجة. isagoo ugu jawaabaya inay awal horeba albaabkiisa u taalay oo uu diyaar u ahaa si aanay u dhicin in xoog lagu soo qabto carruurtiisana looga nixin. balse weriye waa'il isaga oo qoslaya oo ku jeesjeesaya ayuu ka codsanayaa inuu daawadayaasha tuso shandada si ay u rumaystaan. waraysigaas oo ahaa mid aad u dheer oo socday muddo 2 saacadood iyo dheeraada, sheekhu wuxuu rabay inuu isku bari yeelo oo uu dadka tuso in waxa laga sheegayaa ay yihiin waxba kama jiraan iyo wanjalaad. muuqaalada laga faafiyey in ay isugu jiraan kuwa la soo jarjaray iyo bare bulsho oo aan ahayn kuwiisa rasmiga ah. balse maxay kuugu taallaa? wariyihii waxa uu ugu dhameeyey inuu markuu ilbidhiqsiye hadlaba uu hadalka ka soo dhex galo
isaga oo ku eedaynaya inuu yahay argagixiso oo uu isku dhiibo amniga isaga oo sheekhuna labadaas saacadood ku qaylinayay oo ku dhaarinayay inuu siiyo 1 daqiiqo oo uu ku jawaabo oo uu iskaga dulqaado eedeymaha loo soo jeedinayo halka dad ka mid ah maamulka dawladda iyo jaamacadda Azhar oo qadka telefoonka ku jiray ay hadlayeen midka ugu yari 15 daqiiqo oo ay eedeymo aan jirin dusha uga tuurayeen sheekha bal waxaad sawirataa qof barnaamij 2 saac iyo badh lagu marti qaaday si uu jawaabo uga bixiyo eedeymo loo soo jeediyay laakiin markuu hadalka bilaababa laga soo dhexgalayo isaga oo ku baryootamaya inuu hadalka dhameeyo oo uu leeyahay ilaahay ayaan tala saartay balse wariyuhuna ku qoslayo oo ku jeesjeesayo ilaa uu ka yiraahdo sheekh maxamed اقسم بالله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا خايف انت اللي ودي تكون انت خايف انت اللي تكون انت. جايب لنا ناس جزاك الله خير. فعلا. مش عاوز اقول حسبي الله ونعم الوكيل، لو قلت لها ثمن عند الله عز وجل. طيب لا كمل يا بقى شيخ لحظه محمود. لله لله دي فرصه بقى عشان ارد على الاعمال لله لله مش هقولها اتفضل، تاني. اتفضل. انا ما ارد أنا بعدين لازم تقول لي لما بقى لنا تقول لي يا ساعة. شيخ محمود. طب اما اخلص رد سيبني لا، اكمل بقى الله يكرمك. ده اهم حاجه لله، اهم حاجه. جيت عند البراءه تقول لي طيب ايه؟ دي البراءه لله، كونوا منصفين لله. والله ستحاسب بين يدي الله، والله انا خصمك بين يدي الله. مش عاوز ندافع عن نفسي، ما تشوف مش عاوز ندافع عن نفسي. سجلك تكن المتحرك على حكما. القتل وعلى العنف. المفروض اكمل جمله طب يلا لله. طب ilaahay ayaan kaaga ashkatooday adna waad dhiman doontaa anna waan dhiman doonaa ilaahay hortiisa ayaana ku kala bixi doonaa iyadoo habaarkaas uu qosolka kaga jawaabaya dad badan maskaxdooda ka bixi waayey heer ay aamineenba inuu habaarkaas sheekhu ku dhacay weliya Waa'il al-Ibraashi hadda waxa uu la kulmay allihii abuurtay adduunyadana waxa uu uga tegay si degdeg ah oo aanu filanayn halka uu Sheekh Maxamuud Shacbaan xabsiga ku jiro laga soo bilaabo maalintaas oo markii fursadba loo siin waayay inuu hadal kaliya dhamaystiro oo uu naftiisa ku baraxo uu iskaga baxay barnaamijkii oo socda laakiin isla markii uu ka baxay stuudiyowga hortiisa ayaa lagu xiray oo waxa loo taxaabay xabsiga halkaas oo uu 8 sano ee u dambeysay ugu xiran yahay cadaalad darro iyadoo oo uu ku dhacay xanuun ama teed xumo ah oo uu cuntada joojiyay qof kasta oo daawada muuqaalkaas oo YouTube ku jirana waxa uu xaqiiqsanayaa in Waa'il al-Ibraashi uu sidoo doono ugu jeesjeesay Sheekh Dr. Maxamuud Shacbaan oo uu barnaamijkaasuna ahaa shirqool uu u dhigayay sheekha isaga oo loo xiray eedeymahaas iyo tuhumadaas uu dusha ka saaray wariyahaasi Jaanisna uu u siin waayay in uu xataa dhamaystiro hal jumlad oo uu naftiisa ku difaacayo bal waxaad qiyaastaa qofka raba inuu sheegay inay xaaraan tahay in dadka la dulmiyo oo la iska dilo oo u doodaya dadka la dulmiyay ee aan haysan cid u dooda taa bedelkeedana isagii lagu eedeynayo inuu yahay irhaabi taageersan ikhwaanul muslimiinka marka uu yiraahdo isbariyeel oo uu ku hadlayo qowl xaq ahna lagu qoslayo oo loogu jawaabayo waxaad noo wadaa waa comedy inkasta oo markii sheekha la xiray uu al-Ibraashi sheegay inuu la hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo ay ceeb iyo fadeexad tahay in stuudiyowgiisa lagu xiro qof barnaamijkiisa marti u ahaa haddana waxa loo arkayay uun inay ahayd inuu isku dayayo in aanay taageerayaashiisu ka lumin waxa kale oo iyana jirta in dad badani kula coloobeen halka uu ka gaaray Waa'il al-Ibraashi inuu indhala'aan ku raacsan yahay nidaamka dawladda militariga ah wuxuu barnaamij live ah ka sheegay in maalintaas dadka lagu xasuuqay barxadda Raabica ee ay ku dhinteen dadka badani in uu ka codsaday madaxweyne Cabdifataax Siisi in laga dhigo maalin qaran oo ay dadku ku farxaan ciid qaran oo la isku hambaliyeeyo subxaanallah الاعتصام الدموي المسلح في ربعة وفي النهضة كان اعتصاما بمثابة دويلة داخل الدولة. أنا يجب أن نستعد لهذا اليوم ونحتفل به لأنه لا يوجد ما يخجل اليوم يجب أن نتباهى به ويجب أن نفخر به يوم فض الاعتصام في 14 أغسطس بعد غد يجب أن نحتفل ونحتفي واقترحت على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نحول هذا اليوم إلى يوم احتفال. shacabkii reer Masarna hadda ayay geeridiisa ku farxayaan oo ay isugu tahniyadeynayaan heer ay wasaaradda warfaafintu soo saartay bayaan ay dawladdu ku mamnuucayso in qof dhintay la caayo iyadoo wasaaradda diintuna soo saartay fadwo ay ku sheegayaan inaanay bannaanayn in qof dhintay oo allihiisa la kulmay lagu farxo oo la caayo innaga oo aan cidnaba ku boorinaynin in qof dhintay lagu farxo haddana waxa isweydiin leh halkii ay wasaaradahaasi ku maqnaayeen markii uu al-Ibraashi lahaa ha laga dhigo maalin ciida maalintii dadka badan la xasuuqay Waa'il al-Ibraashi waxa uu dhintay 9kii bishan aan ku jirno kadib markii uu sanadan la tacaalayay cudurka corona oo sanbabadiisa googooyay 80% isagoo muddada sanadka ah jiifay gurigiisa oo ay oxygen ku xidhnayd waliba iyada oo aan cidna u imanaynin dadkii uu caanka ka dhex ahaa iyo ciidamadii ilaalinayay midna bal waxa ka wada tagay shaqaalihiisii guriga cabsida cudurkan darteed
iyadoo xaaskiisa oo ka bogsatay oo keliyahay ay la joogtay. ugu dambayntii waxaan naftayda iyo tiinaba ku boorinayaa inaynu iska ilaalino waxa dulmiga la yidhaahdo iyo in qof bini'aadam ahi dulmi kaa tirsado diintu doonaha haystee oo aan adduunyada ka tagno innaga oo nadiifa. inta dulmanna allah subxaana wa tacaala ha u gargaaro. hana ilaawin daawada inaad muuqaalkan cid uun u sii sheergarayso. waxaa laga yaabaa in ay waano u noqoto adna aad ajar ka hesho. aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. nabad ahaada tan iyo kulan dambe insha allah.